السلام عليكم كسر وهذا مقال عصب فضلا هدية تمركي كوجو هريسة وحن كاعد سنين مقالك لايك نود هذا كومنتين هذين قبل حسوا channel كان هدو سبسكرايب كوهن سبسكرايب نصارته مقال كنا ما أنت وحكوساب سنية هاي 20 items found in a hospital لبعتن شيء أو لقى هلا إسبيتال هذا معناها مهمة ما هن إن عافمات كهذا لكن إريادا قاركود قاب إنجليش أنا وقف سرينا أياربنا إنان أفهمتان إنجليش أهان أفهمتان أوكي إنا فهمتنا يا رجينا يا مشاس إن hospital سأقولنا هذا hospital وقاب عافمات أو hospital واي تسمعنا بين نوعهم بحرو مركا أن هذا أنقذ قلنا حواي كو وحنك هذانا doctor a person who treats وقفك who treats كاسو داوية sick people dadka xanuunsan and helps macnaha waxaa waaye asagoo ka caawinaya them get better inay ayaga helaan wanaag macnaha wanaag haddii oo ani ahaan wanaag waxaa waaye qofka sidiisa hore inuu ka fiicnaado so caafimaad fiican inay helaan ama ay si fiican u dareemaan macnaha wax fiican dareemaan wanaaga macnaha xanuunkii hay inay ka bogsoodaan absolutely that's the correct thing. And second, nurse. So nurse or nurse. So labada qaab wadi karta nurse ama nurse. A person waqof who helps kaasoo caawinaya doctors dhaqaatiirta and takes care of the patient. Sidoo kalena gargaar u fidinaya bukaanka. Macnaha haddii dhakhtarka uu maqan yahay qofka cirbadaha siiyo jag abgareeyo qofka inuu caafimaadkiisa okay yahay inuu wax u baahan yahay badana dabagalka ku sameeyo ayaa la yiraahdaa nurse waayo dhakhtarka inta badana ma joogo okay patient is a person who is sick waa qofka xanuunsan and receiving kaasoo helaya treatment in a hospital daaweyn ka helaya isbitaalka bukaanka waxaa la yiraahdaa a patient is a person who is sick and receiving treatment in a hospital ina fahanteen ayaa rajaynaya ambulance okay ambulance a special vehicle waa baabuur qalabaysan kaasoo loo diyaariyey in uu qaado dad carry sick people or injured people dadka xanuunsan ama dadka dhaawacan inuu qaado to the hospital asoo geenaya dhanka isbitaalka okay kan kale waxa waaye bed is a place where patients a bed waa sariirta so sariirta waxaa marka a place where patients lies down okay waa meel ama goob dadka lagu seexiyo to rest or sleep si ay ugu nastaan mise ay u saxdaan so sariirta waa meel dadka la seexiyo xanuunsan si ay ugu nastaan ama ay ugu hurdaan okay wheelchair a chair that with wheels a chair with wheels waa kursi lugo leh macnaha lugo wareegsanayo oo soconaya leh used to move patient kaasoo loogu talagalay in lagu qaado mise lagu socodsiiyo dadka xanuunsan who can't walk kuwaasoo aan lugeyn karin okay stretcher a flat bed waa sariir flat ah sariir siman oo toosan oo macnaha aan lahayn sariir god lahayn buur lahayn oo wada siman used to carry taasoo loogu talagalay in lagu qaado patients dadka who cannot move macnaha patients waxa waaye bukaanka si hore usoo baranay inta badan oo soo noqon doonta cashirkeena inta hadda aan ka hadlayno muuqaalkan waa arki doontaan so haddii aad dib marka qaar u aragtaan waxaa ogaataan inuu yahay bukaan a patient is a bukaan sorry si hore usoo baranay meeshaan ayay ku jirtaa so waxa waaye stretcher is a flat bed used to carry patients who cannot move stretcher waxa waaye sariirta flatka ah oo siman oo aan lahayn kuskuusi ama burbuur lahayn oo toosan taasoo loogu talagalay in lagu qaado bukaanada aanan socon karin syringe a tool waa qalab used by the doctors kaasoo isticmaala dhaqaatiirta or nurses kalkaaliyayaasha to give injection si macnaha qofka loo siiyo irbad or to take blood ama loogu soo qaado dhacaanka dhiigga so syringe waa silingo ani silinga u aqaanaa siringa so syringe waa silingo taasoo lagu soo qaado dhacaanka ama dhiigga qofka loogu qaado ama lagu siiyo cirbad u qorneed qofka okay injection
So injection waa medicine given. Injection is a medicine given into the body using a syringe. So tan syringe aan soo baranay, syringe kan waxaa lagu maxnaa wax lagu shubo maxaa marka waxaa lagu shubaa injection daawo aa lagu shubaa taasoo la siiya taasoo jirka looga siiyo qofka xanuunsan iyadoo la isticmaalayo syringe. So injection qofka lama siin kara iyadoon la haysanin syringe. Inaa fahanteen intaas ayaa rajaynayaa. Medicine is a substance used to cure or treat illness. Okay? So haddii aan macnayn waxaa waaye a substance waa shay waa waxyaabaha waxyaabo la taaban karo. Substance wax la taaban karo waay. Okay? Used to cure kuwaas oo lagu daweeyo or macnaha loogu gargaaro ama lagu daweeyo illness xanuunada. So qofka hadduu xanuunsan yahay daawooyin la siiyaa jirto ama cirbado la siiyo ama kaniiniyo la siiyo. So waxaas la siiyo waxaa la yidhahdaa medicine. Okay. Thermometer waxaa waaye thermometerna waa dhaha dadka oo Englishka kale, laakiin Englishkan waxaa waaye thermometer waa is a tool used to measure kaas oo lagu cabiro body temperature heerkulka jirka. Okay, dadka qaarna qoorta loo geliyaa oo lagu laabaa, dadka qaarna kilkilaha, dan caruurta yarna waxaa loo geliyaa waraqda macnaha labada cajarada dhexdooda. So meel walba oo kulul oo luqluq ah waa la gelin karaa. Afkana dadka qaar la gelinaa waa arkay. So ana dhakhtar ma ihi laakiin inta aan arkay aan idin sheegayaa. Okay, bandage a strip of clothes used to cover and protect a wound. Waa maro jilcan ama mara aan ahayn mara aan galaynin macnaha ay galayso aariyo dabeel galayso oo aanan ahayn mara xiran oo cub ah taas oo lagu daboolo ama lagu daweeyo boogaha. Tusaale meel boogaha ugu taalo daawo la marinaa. So daawadaas markii la mariyo kadib waxaa lagu daboolaa bandage lagu daboolaa. Okay, operation room or theater. So theater laba waaye. Theaterka caadiga oo filmaanta laga daawado iyo theater kale waa qolka qaliinka. Okay, a special room waa qol qalabeysan oo special ah oo khaas ah. Okay, waa special room where doctors perform surgery. Waa qol aad u qalabeysan oo khaas ah taasoo dhaqaatiirta ay ku sameeyaan khaliimada culus ama khaliimada fudud. Okay, stethoscope baa la yidhahdaa. Isku day inaad ku dhawaaqi kartid stethoscope. A tool used by doctors waa qalab ay isticmaalaan dhaqaatiirta to listen to the heartbeat taasoo ay ku dhageystaan qofka wadna garaaciisa or breathing macnaha neefta qaadkiisa qofka markuu neefta qaadayo ayaa lagu dhageystaa. Okay, macnaha si loogu ogaado qofkan xaaladiisa dhanka wadna garaaca ama dhanka neefsashada. Blood pressure. Okay, haddaan ku soo celiyo stethoscope haddii aad aragtaan dhaqaatiirta badanaa qoorta ay ugu jirtaa waa sida earphone camal waaye dhagahu gishtaa bahalyarna way leedahay caloosha ama feeraha ama dhabarka ayaa qofka laga saaraa. Okay, blood pressure monitor. Blood pressure waa is a device used to check taasoo lagu ogaado mise lagu fiiriyo how fast sida ugu dhaqsiyaha badan or strong ugu awoodda badan the blood pressure is moving to in the body. The blood is moving to the body. Macnaha waa qalab lagu ogaado awoodda ama sida waxaa lagu ogaadaa ama lagu qiimeeyaa sidee ayuu jirka dhiigga ugu fidayaa. Macnaha hadduu yahay mid tartiib soconaya iyo hadduu yahay mid xoog u soconaya. So hadduu fast yahayna waa la daweynayaa, hadduu tartiib yahayna waa la daweynayaa. Okay, reception. A reception, the front area where patients check in or get information. Waa albaabka hore ee isbitaalka kaas oo bukaanada ay imaadaan si ay ugu checking gareystaan macnaha in ay iska diiwaangeliyaan si isbitaalka loogu gudbiyo ama ay u helaan
information ka warqadda la soo siiyo looga macneeyo ama warqadda ay u baahan yihiin looga siiyo meeshaas. Okay, pharmacy or pharmacy. So anaga Soomaali ahaan pharmacy oo naqaan, laakiin English waa pharmacy. The place in a hospital. This is a place in a hospital. Kani waa meel ka mid ah isbitaalka where taasoo meeshaasoo medicines are kept. Dawooyinka la dhigaa and given. macnaha dawooyinka ayaa lagu keydiyaa, waa qol dawooyinka lagu keydiyo. Sidoo kale qofka loo soo qoro dawada meeshaas uu tagaa qolkaas si dawo loo siiyo. Inaa fahanteen ayaa rajaynaya meeshaasna. Laboratory ama lab. A room waa qol where tests are done. Waa meesha testiyada dhacaanka ama dhiigga ama kaadida waxyaabaha lagu dhaha soo qaad iyo keen ama waxyaabaha meesha lagaga qaado lagu baaro. Inaa fahanteen ayaa rajaynaya. Haddii dhiig laga qaado laboratory lagu testi gareeyaa. Haddii kaadidaada keen lagu dhaha ama saxaradaada keen lagu dhaha meeshaas ayaa la geeyaa. Haddii candhuufta laga qaado meeshaas ayaa la geeyaa. So lab waa meesha roomka qolka lagu testi gareeyo ama tijaabada caafimaad lagu maro. Okay, oxygen tank waa a container that holds oxygen. Waa weel kaas oo ku jiro oxygen, lagu keydiyo oxygen for patients si loo siiyo maxaa la dhahay bukaanada who have trouble in breathing, kuwaas oo qaba dhibaato dhanka neefsashada ah. Haddii oxygen u baahan tahay dhanka neefsashadana ay ku dhibayso, kan ayaa la isticmaalaa oo si qofkaasi looga daweeyo ama looga caawiyo dhanka oxygenka. Okay, x-ray machine, a machine that takes picture. Waa machine qabanaysa ama qaadayso sawirro of bones, lafaha jirka, and inside the body, iyo gudaha jirka waxa ku jiro. Tusaale haddii gacanta aad ka jabto, x-ray ayaa lagu saarayaa si loo ogaado lafta jabtay. Haddii baawur ka dhacdo, x-ray ayaa laga saarayaa feeraha ama dhabarka meesha ahaataba meesha ku xanuunayso markaas si loo ogaado xaaladaada lafaha ama jirkaaga gudaha. Haddii laf jaban tahay, haddii dhagax kugu jiro, waxyaabaha lagu ogaado ay ka mid tahay. Waayo qofka bini'aadanka jirkiisa lama dhex gali karo. Intaas waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahamtay. Haddii aad muuqaalkan intaan ila soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe ii saarto, muuqaalkana like dhahdo, asxaabtaadana aad la wadaagto. Xogaa haddii dabeel yar ay jirto, waxaan idinka codsanayaa inaad ka raali ahaataan oo codka dabeesha ay ku jirto waan dadaalayaa saa ugu saari lahaa, sababtoo guriga aad u kulul yahay, marwaxada ay daaran. So haddii dabeel badan ay ku dhibto, cudurdaar ayaan dhiibanayaa, ka raali noqdo. Sidoo kale xogaa xilli roob waa jiraa oo jingada ayaa aad u qaylinayso xilliyada qaar. So haddii aad muuqaalkan ka dhex maqashaan dhawaq ama dabeel ama buuq kale oo dabeel ku furan tahay, waana dadaalayaa qaabka aan u edit gareyn lahaa ugu saari lahaana waan gelayaa. Intaas waxaan u marayaa inaad heshaan muuqaal wanaagsan oo degan oon buuq ku jirin. Marka waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan aad daawateen. Haddii aad mar kale muuqaalkan aad intaad soo gaarteen, waxaan kaa codsanayaa oo aad subscribe saar, notification-ka furo baqshada si macnaa mar walba muuqaal aan soo dhigno uu kugu soo dhaca baqshad ku dhahaysa Yuusuf ayaa muuqaal soo dhigay. Inta muuqaalkiisa waxay ku kulmi doonaa, waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.